الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan ku jirnaa walaalayaal dowladeennii lixaad mar loo qaban jiray dumarka muslimaadka ah ee ku nool magaalada Oodse iyo nawaaxigeeda dowladda waxaan ku jirnaa maalinteedii labaad muxaadaradii labaad muxaadarada magaceedu waxa weeye at-tawakkul waxay noo geli doona sheekhu al-faadil sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil falyatafaddal mashkuuran ajran insha Allah. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد الدرس كصاب سنة التوكل أرجع التوكل وتلصارشه أما إلهي سبحانه وتعالى يدوكيل كبيرته wakiilnimada aad alla ka dhiganayso subxaanahu wa tacaala waa arrimahaaga iyo danahaaga dhammaantood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saaratay waxay culamada ku tilmaamaan tawakulku inuu ka mid yahay cibaadaadka ugu weyn ee dadka muslimiinta ay la yimaadaan cibaado ka mid ah waa min cibaadaati alquluub ama waa cibaadaadka qalbiga qofka muslimka adega waa dhaqan akhlaaqda muslimiinta ee waaweyn ka mid ah culamada suluukna waxay dhahdaan waa manzil min manazil الdiin waa maqaam min maqaamaati almuuqiniin waa manaasisha kala dambayse ama maqaamaadka kala dambeeya diinta maqaam ka mid ah bal alimaam ibn اlqayim raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay التوكل نصف الدين ونصف الآخر الإنابة diinta nusna waa tawakul nusna waa inaabo iyo allow noqosho isagoo ka qaadanaya aayadda qur-aan ee ilaahay leeya calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib amase iyadoo laga qaadanayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaabadu waa cibaada tawakulkuna waa isticaana tawakulka ama ilaahayoo la talo saartaa subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka oo qura xataa haddaynu ku koobsanno aayaad aada u tiro badan baa ka soo arooraya sunnadana sile waxa ugu filan fadli inuu qur-aanku ina faray dadka alle tala saarta uu ammaanay fadligooda aakhiriya adduunba ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegay bale waxaa kaaga filan 9 aayadood oo qur-aana in ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa ku amrayo inuu ilaahay tala saarto haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 9 aayadood lagu amrayo maxaad u malaynaysaa dadka inta ka soo hadhana qur-aanka makiga ah iyo ka madanigaaba waa ku soo arooray yacni qur-aankii maka kusoo degay iyo qur-aankii madiine kusoo degay labadaba rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy walilaahi gaybu الsamaawaati wاlard وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه في سورة هود في سورة فرقان اللي وحليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبح بحمده في سورة الشعراء ربي وحليه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم في سورة الشعراء فتوكل على الله إنك على الحق المبين انت ورب سبحانه وتعالى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام فرية إن ربي تلصارته الله النور إنجيريون إنه أهلكي سوديبته الله عزيز كرحيم كأنه تلصارته قرآن كمدني قال sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala facfu canhum wastagfir lahum washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakal cala allahi in allaha yuxibu lmutawakkiliin arrinka markaad go-aan gaadho ilaahay tala saaro rabbi wuxuu jeceliya kuwa tala saartee fi suurati الnisa ilaahay wuxuu leeyahy wayaquuluuna طaaca faida barazuu min cindika bayata طaa'ifaة minhum gayra aladi taquul والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في سورة الأحزاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن آيات القرآن اعتراض بضن له سقال كجارية إلهي سبحانه وتعالى نبي سوفر يدمان تود إنه ألا تلصارته بل القرآن كآياتي وقوه الرئيس ودقوا حكم دها سورة المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. markaynu intaas soo aayadooda isku soo daro waxaynu ka fahmi karnaa arrinta tawakulku siday u weytay haddii 9 jeer nabi maxamed la faray calayhi salaatu wasalaam martabnaadkana siiqadaasi kale uu ku soo arooray waxaa macruufa min waraa'ihi dadka muslimiinta aanaynu faraya siiq kale ama qaabab kale qur-aanka ugu soo arooray tawakulku oo xataa nabiga la leeyahay calayhi salaatu wasalaam aktar min aaya caddayso oo sheego inaad ilaahay tala saaranayso. qul huwa arraxmaanu aamanaa bihi wa calayhi tawakalna fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha illaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim. aayaad qur-aan makiya madani bale oo rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaad sheegataa nebi maxamedow inaad ilaahay tala saarto. qul dheh baa la leeyahy huwa arraxmaanu aamanaa bihi wa calayhi tawakalna. waxaa macruufa markaa oo qof kastoo muslimi fahmi karaa haddii aayaadkaasi dhowr iyo 10 ahi ay kusoo degeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marna iyadoo la farayo marna la leeyahay sheego inaad ilaahay tala saarato dadka kale mu'miniinta sida waajibka ugu yahay ee loo rabo inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saartaan. waxaa qur-aanku uu ka warramayaa rusushii hore oo faraya dadkii mu'miniintaha dhammaantood inay ilaahay tala saartaan. waxaa ka mid ah qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu mithlukum walakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih wama kana lana an naatiyakum bisulطaanin ila biidni illah wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya reer banu israa'iil oo ilaahay yidhi alardi almuqadasa gala baytilmaqdis gala dhulkaasi uu ku yaallo oo isa soo adkeeyey oo 2 nin oo saalixiin oo ka mid a ay leeyihin qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima udkhuluu calayhim albaaba faidaa dakhaltumuuh fainakum gaalibuun wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. waxay leeyihin wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. ilaahay tala saarta haddaan mu'mintiin. macnaha meesha ku jira waxa weeyaan haddaynan mu'miniin ahayn iimaanka iyo yacni tala saaradku inay isku xidhayiin oo shardiisu yihiin. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku tilmaamayaa dadka mu'miniinta ee saalixiinta ah calaamadaha waaweyn ee lagu garto inuu ka mid tahay ilaahay ay tala saartaan. inama almu'minuuna aladiin إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمن كدبتي وحويا بإلهي لكوا مركا قرآن كالو أخريه قلبي يدودا يتشلعومان يقددومان وقوى إلهي آياتي سهدي لغو أخريه إيمان كودو وقرره وعلى ربهم يتوكلون بإلهي ربي قولنا التلسارنية بل إلهي وحلي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمؤمنين يوحى هذا دنيدا وحى جوغا وحبنا ما هليليان وحي إلهي نقريم وياني إلهي بانا نتلصارنا مركا إلهي تلصار تباليلي هذا مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إلهي وحلي إن ينصركم الله فلا غالب لكم. rabbi hadduu idiin gargaaro rabbi hadduu idiin hiiliyo cid idinkama xoog badanayso. hadduu rabbi garabkiina ka baxana oo idiin hiilin waayana isaga gadaashiyaa idiin hiilinaya. wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun.
rabbi ha tala saartaan baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala kuwa mu'miniinta ah. waxaynu aayaadkaa markaa ka arkaynaa mar 9 aayadood in ka badan in nabiga la faray calayhi salaatu wasalaam inuu tala saarto. mar waxaynu arkaynaa aayaad badan oo ilaahay ku farayo dadkii mu'miniintae hore calaa lisaani rusuli. mar waxaynu arkaynaa iyadoo dadka mu'miniintaas sifadooda lagu tilmaamayo. waxaa kaloo qur-aanku inooga warramaya nebi maxamed oo quran maaha calayhi salaatu wasalaam cidda la faraya inay ahaydba dhaqankii nebiyada dhammaantood inay ilaahay tala saartaan. waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramaya iyagoo leh oo uu nebi nuux leeyahay iyo ambiyadii ka dambaysay wamaa lanaa anlaa natawakala cala allahi waqad hadaana subulana walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wacala allahi falyatawakal ilmutawakiluun. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka tilmaamaya isagoo nebi nuux le yaa qawmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illahi facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum. waa ka alla tilmaamaya nebi huudoo leh innii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbakum. nebi kasta oo qur-aanku uu ka waramo iyadoo uu leeyahay ilaahay tala saarta ama ilaahay baan tala saaranay ayaa soo arooreysa. waxaynu u baahanay marka haddaynu mu'miniin nahay inuu ilaahay qalbigeena ku weynaado oo aynu talada u dhiibano. waxaynu u baahannahay inaynu fahamno aahaarta iyo raadka weyne ka ratibmaya inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarano. kow, iimaanka xaqiiqadiisa ku xidhan wa ilaa iimaanka ama ma jiro ama dacfu qabaa. وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين marka la yidhi. waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya haddaynu ilaahay tala saarana in ilaahay nagu filan yahay. waman yatawakal cala allah fahuwa xasbuh. ciddii rabbi tala saaratee talada ilaahay u dhiibata ilaahay baa ku filan baa la yidhi subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamaya haddaynu ilaahay tala saarano in allayna jeclaanayo yuxibu lmutawakiliin. waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamayaa alaysa allahu bikaafin cabda. saynan ilaahay u tala saaran ilaahay miyaanu addoomihiisa ku fillayn ayaa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala. nusuusta qur-aankii waxay tilmaamaysaa waman yatawakal cala allahi faina allaha casiizun xakiim. war ciddii ilaahay talada u dhiibata baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala ilaahay waa mid xoog badan oo qofka isaga isu dhiiba lagama xoogi karo. waa mid xakiim ah oo qofka isaga isu dhiiba wuxuu u dhiibto si fiican ugu maamuli kara. wax allaaliya waxa ka soo hadha rabbi ee la tala saartaana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa cibaadun amhaalukum inayin addooma inala mid ah inaanay ahayn duul tale loo dhiibto. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa markaasi inay yihiin kuwa munaafiqiinta ah kuwa hungurigu meelaha kale aan alla ahayn uu ka hayo. ilaahayna wuxuu leeyahay waa khasnadaha cirka iyo dhulkaba ilaahay bay gacantiisa ku jirtaay munaafiqiintaan wax garanayn baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala. sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaynu in yar ka tilmaamno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixeynka kusoo arooray wuxuu sheegay 70,000 oo ummadiisa ka midi inay jannada geli doonaan iyadoo aan la xisaabin bigayri xisaab. 70,000 oo ka mid inay gelayaan. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sifeeyey kuwaasi nooca ay yihiin. wuxuu nabigu yihi hum aladiina laa yastariquun walaa yatatayaruun walaa yaktawuun wacalaa rabbihim yatawakaluun. waa kuwo aan cidna oo dhan wax igu tuf waxba aan ba'saysan waxba aan isku gubin ilaahay tala saarta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. yacni waa duul rabbi subxaanahu wa tacaala si dhaba isugu dhiibay. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugan ka mid ah inuu yihi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkuli larazaqakum allahu kama yarzuqu طayr tagdu khumaasan wa taruuxu bitaanan
haddaa ilaahay u tala saaran lahaydeen buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, tala saaradka uu xaq muto sida ilaahay shimbirahaba u arsaaqo ayuu idiin arsaaqi lahaa. shimbirtu kayd ma leh, meella wax ma dhigato. subaxii bay ka lahdaa iyadoo gaajaysan, waxbay soo cuntaa, habeenkii iyadoo dharagsan bay iska soo hoyataa. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, haddaa ilaahay tala saaran lahaydeen sida shimbirahaba alla u arsaaqo ayuu idiin arsaaqi lahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka markuu gurigiisa ka baxo, xadiidka saxiixuljaamici sagiirka ku yaalay sheekh albani saxiixa ku tilmaamay, qofka markuu gurigiisa ka baxo yidhaahda bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah, qofka erayada saddexdaa eray ku dhawaaqa, bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah, waxaa lagu yidhaahdaa buu nabigu yihi hudiita wa wuqiita wa kufiita, waa lagu hanuuniyey oo waa lagu dhowro lagu ilaaliyey oo waa lagugu fillaaday baa la yidhaahdaa. dabeetana nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, shaydaan baa shaydaan kale ku yidhaahda kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. war shaydaanu iyagoo wada hadlayo wuxuu idhaha maxaad ka qaadi nin la ilaaliyey oo la hanuuniyey oo la dhowray, adigu maxaad ku samayn kartaa? yani sheekinta waxay isu tilmaamaysaa ninka kani inuu xirzun aamin galay, inuu galay dhufays adag oo aan shaydaanku ka dabageli karin. dabeetana iyagoo isu calaacalaya wuxuu isu tilmaamaya, wuxuu leeyahy maxaad samayn? kan waa la hanuuniyey oo waa lagu fillaaday oo waa la dhowraye. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa markaasi sida qofku hadduu ilaahay tala saarto rabbi ugu filan yahay. tala saaradku marka muxuu u baahan yahay? goormaan la odhanayaa qofkani ilaahay buu tala saartay? inaad see ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala maxaad u baahan tahay? kow, waxaad u baahan tahay inaad rabbi barato iyo sifaadkiisa. markaad garato ilaahay subxaana wa tacaala inuu casiiz yahay, dunida isagoo abuuray, gacantiisa ay ku jirto, wuxuu doono mooyaane wax kale aanay dunida ka dhici karin, awood badan yahay, ciddii tala saarata uu isagu ilaaliyo, waxay keensanaysaa inuu rabbi aada iimaansato inaad taladaada u dhibato. yacni yaa wakiil laga dhigtaa. maalan markaad shirkad haysato ama xoola haysato, hadduu jiro qof aad kalsooni ku qabto oo kartidiisa, cilmigiisa, amaanadiisa, wixiisaba waxaa laga yaaba inaad hantidaado dhan u dhiibto tiraahdo wad shaqada, waayo waxaad ku qabta inuu xirfadyahana yahay, isla markaasina uu yahay qof ammaanada waxaa kuu dhowraya, warwar kaama haynayo. haddaad rabu samaawaat sifaadkiisa markaa rumaysan tahay iyo awoodiisa, waxay keensanaysaa inaad isaga tala saaratid. tala saaradku markaa wuxuu ka yimaadaa waa qalbiga qofka bini aadamka oo tawxiidku uu dego, rabbi si dhaba u caabuda, qalbigiisa uu ka foqo calaa'iqu shirki oo dhan, waxyaabaha shirkiga keeno oo dhan uu qalbigiisa uu ka foqo. goormay waxaas qalbigaaga ka foqayaan? marka aada garato wax dunidan ka dhacaaba inaanay jirin isagu wuxuu doono mooyaane, wax kastana inuu awoodo. tala saaradku wuxuu yimaadaa markuu qofku kalsooni ku qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala, ee qalbigiisu rabbigii uu ku xasilo, ee adduunku uu isagoo kaa mid noqdo inaad weydo iyo inaad heshaa. mithaal basiit, waxay culamadu yidhahdaan haddii adigoo dirham haysta bay yidhahdaan, $1 adigoo haysta hadduu kaa lumo, xoolo kalena aad haysana halkaa $1 aad haysatay, laakiin nin boqor uu meesha joogo oo ku siiyey oo ku yidhaahdo marka xabadii kaa luntay adoo warwarsan oo le midkiina wayga lumay, oo ku yidhahdo waxba ha warwarin, aniga khasaaintaydu buuxda, mar kastoo aad baahatana kaale waan ku siinayaa. haddii mid iyo 2 toona kaa lumaan wax weyn kuguma aha, waayo waxaad ogtay meel buuxda ka soo qaadayo markaad u tagtaba aad ka soo helaysaa inay jirto. saa daraaddeed hadday xabadi kaa lunta iyo hadday 2 kaa luntan toona ma warwaraysid. waxaa la mid ah
qofka mu'minka adduun hadduu hela iyo hadduu waayo hadday dhibadhacday haddaanay dhibadhicinba ilaahay buu tala saartaa. waxaanu ogyahay rabbun raxiimun gafuurun casiizun xakiim inuu tala saartay. saa daraaddeed adduunka oo dhan iyo basharka o dhan hadday isu tagaan dhib kuma hayso. sidaa awgeed buu nebi huud lahaa isu wada taga dhammaantiin oo ban aniga dhakri iyo makri lagu sameeyo o khiyaamay. ilaahay baan tala saartay buu laha subxaana wa tacaala. walidalik tala saaranku yani qofka qalbigu wuxuu gaadhaa mu'minka bay dhahaan qalbigiisu siduu u xasilo haddii uu ilaahay dhab ugu kalsoonaado sida ilmaha yari hooyadii naaskiisa ugu kalsoonyay bay dhaha. ilmaha yaraan waxba kala garanaynin hadduu naaska hooyadii afka la helo bes adduun wuu u dhammaaday. yani wuxuu ka rabay isagoo adduun wuu helay. saa daraaddeed waxay dhahaan waa mutma'in ilbaal, waa niyadiisi way xasiloontay. waxaa la mida bay dhahaan qofka mu'minkii hadduu rabbigii helo oo uu garto si dhaba u caabudo adduun wixiisa kaloo dhami dhib kuma haya, waayo rabu samaawaati walardi buu ku tiirsan yihi. waxyaabaha keena markaa qofku inuu ilaahay si dhaba u tala saarto waxaa ka mid ah xusnu dannika billaah, inaad ilaahay mala fiican ka qabtid. mala fiican inaad ilaahay ka qabtid waad rumaysan tahay inuu ilaahay dadka ku filan yahay, aad rumaysan tahay inuu awood badan yahay, aada rumaysan tahay inuu raxmaan raxiim iyo cid isaga ka naxariis badan oo loo carara inaanay jirin. cid kaaga aada uga han weynaato o istiraahdo ciddan baa kuu degdegaysa aanu jirin oo isaga ka degdeg badani. waana ka nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya ana cinda xusni danni cabdi, yani waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga fishu baanana ah. haddaad alle ka filato inaad waxba helaynin de waxba ka heli maysid. haddaad ilaahay ku kalsoon tahay oo aad mala fiican ka qabtidna waad ka helaysaa waxaad u baahan tahay. sidaa awgeed ayaa waxay idhahdaan waxyaabaha tawakulka fiican keenaya waxaa ka mid ah inuu qofku ilaahay arrimihiisa oo dhan u dhiibto. wa ufawidu amrii ila allah, masalatu tafwiid. ilaahay wadaan kuu xil saaray inaad tidhaahdo. laakiin tafwiidku goormuu dhacaa? goormuu qofku arrimihiisa oo dhan ilaahay u dhiibtaa? waa markaad adigu intii ku saarayd la timaado. yacni adiga waxaa lagu faray alamru wannahyi. qur-aan baa soo arooriya axaadiis waxaana samey waxaana ha samaynin la yidhahdo. adigu intii ku saarayd markaad samayso natiijada ka dambaysaad ilaahay u tala saaranaysaa subxaana wa tacaala. waxaad la mid tahay bay yidhaahdaan sidii kii beerta falanayay. beerta hadduu ag fadhiisto yidhahda ilaahay baa u tala saartay inay midho dhasho. wuxuu ka tegay wixii la faray. waxaa isaga la faray inuu beertiisa qodqodo, faadhfaadho, inuu hagaajiyo, inuu midho ku rido, inuu biyo ku shubo, inuu si fiican u dhigo. kadib baa waxaa la faray in ilaahay u tala saarta markaa wixii ka soo baxaya. ilaa uu ii hagaaji inuu yidhaahdo oo wax fiican ha dhasho oo iiga beer. si awgeed waxaa loo baahayay qofka mu'minka ahi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaba u tala saarto. oo waxa weeyaan bay dhahaan qofku asbaabta la faray ha la yimaado, laakiin yuu iyada ictimaadi. yuu is odhanin waa qaanuun sababiyo haddaad muqadamaadkii la timi natiijadu waa ilowba ilow, natiijadu waa in shaa allahu. ilowba ilow waxa la yidhaha kama jiraan. adigu waxaad hagaajisay beertaad dhigtay ilaahay baa dhulka la goyn karaa. ilaahay baa balaayo kale samada kaga keeni karaa. cid kalaa iman kartoo kaa qaadi karta. wax waliba waa ka dhici karaa. sabab iyo natiijo automatically isugu xidhani ma jiraan. laakiin adiga waxa ku saaran markaad asbaabta la timaadid inaad ilaahay subxaana wa tacaala tala saaratid. waxay yidhahdaan qofka asbaabta ka tagaa waa maqruur bay dhahdeen, ama waa caajis. waa maqruur oo waa qof la kadiyey. ilaahay baa isaga tala saartay buu leey waxaan jirin. qofka asbaabtun dul fadhiistaana bay leeyihin waa nooc min ashirkiyaat buu ku jira oo rumaysan mar haddii sababtaan bilowgeedii uu la yimid inuu guulaysanayo, kaasina sax maaha baa la yidhahda. waxaa ka mid a waxyaabaha keena tala saaradku waa xaal ee cilmi maaha. maxaan uga jeedaa? ama masaladan culamadu maxay uga jeedaan? yacni qawaacidda waan sharxay, markaa waa la fahmi karaa. qawaaciddaasi waa la fahmi karaa.
inaan qawaacidda fahmay macnaheedu ma aha inaan mutawakkil ahay inaan ilaahay tala saartay maaha idan waa xaala qalbiya waa xaalo keensanaysa inuu qofku qalbigiisu uu ku xasilo arrintan oo ilaahay tala saarto ee inuu mas'alada cilmiyan u garto ma aha waxaynu ka warramaynaa idan tawakkalku wuxuu u baahan yahay dhaqan buu u baahan yahay qofku inuu istijaabiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qofka yidhaha laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ee iimaankaasi uu dhabkayay waa inuu qirayo ilaahay mooyaane cid xaq lagu caabudaa inaanay jirin waa inuu qirayo rabbi subxaanahu wa tacaala mulkiga dhammaantii inuu isagoo gacantiisa ku jiro waa inuu qirayo rabbi inuu mahadnaqayo waa inuu qirayo inuu ilaahay keli yahay wax walbana uu awoodo taa macnaheedu waxaa ka dhalanaya inuu qofku hadduu mas'aladaasi si dhaba u fahmo inuu mutawakkil yahay yani xaqiiqadaasi hadday qalbigiisa degto inuu mutawakkil yahay baa ka dhalanaya tawakulku markaa wuxuu keensanayaa inaad aaminsanaato risiqaaga inaan cidina goyn karin adiga asbaabtaa lagu faray laakiin cid arsaaqdaada goyn karta inaanay jirin wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wax dunida kor maraa ma jiro ilaa iyo ilaahay baa arsaaqaya wakaayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha waiyaakum tiro badanaa inta noole dunida kor socda oo aan xambaarsanayn wuxuu cuni lahaabaa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala iyagana ilaahay baa arsaaqa idinkana ilaahay baa idin arsaaqa baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxaa rabbi ina leeyahy wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin wax kastoo aad la baxdaan ilaahay baa badiilkeeda idin siinaya isagaana kuwa wax arsaaqa ama khayru raasiqiin isaga ah yacni inaad arsaaqda ka warwarin inta badan dadku masaa'ilka aana ilaahay u tala saaran ee aadka uga warwaraan bay ka mid tahay weliba jaahiliyadan mucaasirkiina ee aynu la noolay wakhtiyadan dambena aad bay dadka ugu sii adkaysay inuu qofku asbaabta kula tala saarto oo is idhaahdo haddii aanad waxyaabahaasi samaynin arsaaqdaaduba way go-aysaa ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala waxay u tala saarteen rabbigood diintan iyo hirgelinteedii waxay u tala saarteen noloshooda dhammaanteed waxaa loo baahanyay markaa dadka mu'miniintii inay rabbigood tala saartaan nebi maxamed iyo ambiyada kaleba ilaahay wuxuu leeyahy wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin makrin ama khiyaamay kuusoo maleegayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala laakiin waxaasoo dhan ka xoog badan baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan dadka mu'miniintii waxay u baahan yihiin inay gartaan waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofka ilaahay subxaana wa tacaala ku dhega in ilaahay uu jid fiican marinayo tala saaradka maxaa midha ee ka dhasha waxa ka dhasha kow in alla kuu hiiliyo in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum alaysa allahu bikaafin cabda waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu waxa dunida ka dhacay oo dhan rabbaa abuurtay waana og yahay siday u dhacayaan inuu bedelana waa ku filan yahay mujarad innagaa layna itixaamaya innagaa layna eegaya qulubteenu siday tahay innagaa layna eegaya un ilaahay intaynu ku tiirsanay ilaahayna wuxuu ballan qaaday haddaynu si dhaba ugu tiirsanno inuu inoo hiilinayo waxyaabaha laga helo tawakulka waxaa ka mid ah in rabbi shaydaanka kaa dhowro innahu laysa lahu sulطaanu cala aladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakaluun shaydaan ma hanto oo ma tawaliyo arrintooda baa la yidhi kuwa iimaankana laga helay rabbigoodna tala saartay waxyaabaha laga helay in ilaahay la tala saarta waxaa ka mid ah xasilooni iyo qalbi deganaan dadka maanta stress iyo warwar iyo qalaq iyo deganaanshiye la-aan maskaxeed iyo qalbiyeedba ku tiro batay laakiin waxaasoo dhan waxa u dawo ah qofku inuu ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala hadduu qofku rabbi tala saarto adduunku hadduu gubanayo ma dhibo adduunku hadduu dacalka kasoo halaagsamayo ma dhibo waayo wuxuu og yahay rabbigii lahaa inuu maamulayo wuxuu kaloo og yahay isaga intii waajibee la saaray inuu sameeyey waintaha amur
inay gubato markaa muxuu uga warwaraya nebi muuse oo ilaahay amray inuu reer banu israa'iil kaxeeyo oo in yaroo ciidana kaxaysto ka baxay ayaa fircoon oo bijabaruuti isla weynidiisi iyo askartiisi iyo wixiisii oo dhan wataa ka daba yimid dabeetana wuxuu gaadhay nebigii meel bad ah waan laga tallaabi karin dadkii la socday hareeraha eegeero waxay idhahdeen xaggan horena bad bay naga xigtaa xaggan dambana waxa ka soo socda bay idhahdeen innaa la mudrakuun bay idhahdeen layna haleel dabeetana wuxuu nebi muuse ku yidhi qaala kalla inna maciya rabbii sayahdii aniga layma haleelin buu yidhi ilaahay baa macayga ah isagaana ay hanuuninaya iyadoo xaggan ay bad tahay oo waxa ka horeeya uu bad yahay xaggan waxa ka dambeeyana uu ciidanyay caqliga bini aadamka aanay muuqanin meeluu ka baxaa xaggan marka uu u bixi lahaana ciidankii uu ka soo cararay baa jooga xaggii uu u ordayeyna bad baa xidhay wuxuu u arkaa caqliga bini aadamkii no way out meel laga baxay inaanay jirin waxay dadkii yidhaahdeen markaa waa nala soo gaadhay isna wuxuu ku yidhi aniga ilaahay baa macayga ah isagaana ay hanuuninaya rabbigii maciisa ahaa muxuu ku yidhi an idrib bicasaaka albaxra faاnfalaq fakana kullu firqin kaطawd اlcadiim ilaahay wuxuu ku yidhi usha aada sidato badda ku dhufo uli bad maxay ka tartaa yani waxaa la yaqaanaa ul bad lagu dhuftay inaanay waxba ka qabanin laakiin waxaa culamada ku jirta bay leeyihin laba shayba dhan waa ka mucjisa oo ilaahay wuxuu tusayaa wuxuu doono inuu yeeli karo dhanna bay idhaahdeen waa ka camal oo waxaa la rabaa nebi muuse iyadoo badda loo kala dilaacin haddana inuu shaqo qabto intuu iska fadhiyo intay baddu kala dilaacdo inuu iska dhex maro lama rabe calaala kale inuu camal qabto ul ku dhufaa layidhi badda ul ku dhufo ul markuu ku dhuftayna ilaahay wuxuu leeyahay fanfalaq waa kala dhambalantay fakana kullu firqin kaطawd اlcadiim qayb waliba waxay noqotay sidii buur weyn baa ilahay leeyay biyihii baa alla kala kaxeeyey waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadi fadrib lahum طariiqa fi اlbaxri yabasa laa takhaafu darakan walaa takhsha jid engegan u samee baa ilaahay yidhi hadda waa bad haddana ilahay wuxuu ku tilmaamaya ariiqi yabasa inuu noqonayo xataa waddo dhooba amay marin badii markay kala dilaacday meeshoo dhooba amay soo marina ilahay wuxuu leeya ariiqi yabasay marin jid engegan oo boos burhku ka kacayo boodha waxaad martaaba ilaahay yidhi adigoo laa takhaafu darakan walaa takhsha adaan cabsina ku haynin haleelitaan in lagu qabtana ka baqaynin mar baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala faatbacahum fircawnu bijunuudihi fagashiyahum min alyami maa gashiyahum waadalla fircawnuhu qowmahu wamaa hadaa fircoon iyo kooxdiisii baa soo raacay baa ilaahay leeyihi iyaga waxaa haleelo daboolay badda wixii ka mid ahaayee daboolay idan hadduu qofku gaadho maqaamka inuu ilaahay tala saarto wuxuu noqdaa mutma'inulqalb sakiina iyo طumaaniina xasillooni buu helaa balaayadu ma dhigto dadka badhbaa intaa in leegi markay qabsato warwara oo fakara oo seexan waaya oo duniduba ku soo ururtaa laakiin qofka mu'minka dhabta ee mutawakilka ilaahay tala saartay isagu intii waajib saarayd mar hadduu sameeyey cabsi ma gasho inta kale rabbigii lahaa buu u tala saartaa sidaa awgeed ayaa waxaa laga faa'iidaa tawakulka inuu qofku طumaaniina iyo sakiina nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo la eryayo oo soo baxsaday isaga iyo abibakar oo buuraley dhex maro ku raadgatay oo god galay oo godka muddo ku jiray oo isku qarinayay ayay isa soo dul taageen qoladii raadacada ahayd ee gaalada ahayd dabeetana abibakar wuxuu ka cabsaday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo mid ka mid a hadduu cagihiisa eego wayna arkayaan cagihiisa hadduu mid eego waa muuqanaynaa wuxuu ku yidhi laa taxzan ina allaha macana ha murugoon abibakarow ilaahay baa inala jiray qofka mu'min
mu'minkii markaa ee mutawakilka ahi ma cabsoodo waayo ilaahay buu tala saartay subxaanahu wa tacaala. sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim markii gaaladu intay qabatay dabka ay u shideen ee ay ku talagaleen inay dabka ku rideen weer buu yidhi oo ilaahay inooga sheegay. wuxuu yihi xasbuna allahu wa nicma alwakiil, ilaahay baa igu filan, mid la tala saartana rabbi baa u fiican. waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu weeyaan. xasbuna allah, rabbaa nugu filan, cid la tala saartana rabbaa u fiican. dabeetana rabbigii uu tala saartay muxuu sameeyey? markii dabkii lagu riday ilaahay wuxuu yihi waxaan ku nidhi yaa naar kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. dabow, hadda dabka wax guba ilaahay baa iska leh, adigana isagaa ku leh. waxaanu nidhi baa ilaahay yihi yaa naar kunii barda, dabow qabow noqo. qabowga laftiisaa wax dila, baraf noqdo, qabowga laftiisaa wax dila. laakiin ilaahay wuxuu yihi wasalaama, qabow aan wax dilin, qabow nabadgeliya noqo baa ilahay yihi subxaana wa tacaala. mid wax guba ha noqonin. dabku asliyan khaasiyada inuu wax guba ilaahay baa ku abuuray, laakiin ilaahay hadduu doonayo wuu ka dhigi karaa midaan waxba gubin. saa daraaddeed ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay ciidamada gaalada tirada badan ay isu soo urursadeen ee ay dacayadda soo faafiyeen, wixii meesha joogayba waa lagu soo urursadee ka cabso. ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xasbuna allahu wa nicma alwakiil. qofku markuu ilaahay tala saarto, wuxuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qof dumar ah oo jilicsan oo ilaahay tala saaratay oo ilaahay ku fillaaday. haajar umu ismaaciil, nebi ibraahim waxaa la faray xaaskiisa inuu kaxeeyo meesha maka la yidhaahdo lama degaan oo waxba joogin uu geeyo, dabeetana u halkaa kaga yimaado. ibraahim markuu iska dhaqaaqay wuxuu ka tegay inay ahayd in yaroo biyaa iyo in yaroo timir ah, iyana ay umul tahay ilmo yar naas nuugsiinaysa. ayaa waxay tihi ibraahim xaggaad nagaga tegaysaa? ma meeshaan aan cidiba deganayn? nebi ibraahim lama hadal, ilaahay baa amroo yidhi sidaa yeel, uu iska socday. way daba socoto waxay ku celcelisay xaggaad nagaga tegaysaa? ma meeshaan aan cidiba joogin? markii dambe su-aasha si kale u dhigto waxay tihi allahu amaraka bi haada, ma ilaahay baa ku faray inta halkan lay dhigo inaad iska tagto? dabeetana wuxuu yihi hayo ilaahay bay faray. idan laa yudayicuna bay tiri, ilaahay baanu haddaba tala saaranay. mar hadduu ilaahay sidaa yidhi na dayici maayo, isagaanu tala saaranay. meesha ilaahay u tala saaranaysaa waxay rumaysantahay mar hadday ilaahay amarkiisa fuliso inaanay hoogaynin. meesha ilaahay u tala saaranaysaa waxa weeyaan waa meel cidaan cidila joogin, oo ay umulto oo ilmo yar haysato, oo wax la cuno intaa yara timiriyo in yaroo biyaa ay haysato, oo odaygeedii ka tegayo isna uu iska tegayo, waa keligeed. markay dhammaysatay intii yarayda biyaahayda ee harraaday ee iyadiyo ilmaheedi yaraaba isla harraadeen u dhaqalmay, ay ororoday laba buurood dhexdood iyadoo eegeegaysa bal inaynay cid aragto ama uxuun aragto, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala malag u soo diray oo halkii ilmaheedu jiifay ayaa biyo looga soo saaray. islaantaa ilaahay tala saaratay barakadeedii baa ilaa hadda la cabaa. waa ceelka dunida ugu da-weyne maanta ku dul yaalla kownka aynu ku noolnay, biyaha zamzamka la yidhaahdo. qof dumar oo ilaahay tala saarataa ilaahay siiyey. zamzamku waa qof dumar ah oo ilaahay tala saaratay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala siiyey. dabeetana ilal yowm ma jiro ceel dunida la da-a oo la garanayo maanta oo 3,000 sannadood in ka badan la cabayo oo aan gurin oo weli sidii loo cabayo zamzamka mooyaane. zamzamkaasi waa karaamadii alla karaameeyey haweenaydaasi ilaahay ka baqatay, ilaahay subxaana wa tacaala tala saaratay, isaga isu dhiibtay. bale ilaahay subxaana wa tacaala si loo xasuusto haweenaydaasi awliyada ilaahay bay ka mid tahay, si loo xasuusto weli qofkii ilaahay isu dhiibay camalkiisii, ayaa inaga layna yidhi waxaa cibaado idiin ah inaad ororodaan halkii ay ororoday.
rukni xajka ka mida weeyaan asacyu bayna safa walmarwa. labadii buurood ee qoftaa dumari dhex oroday ayaa inaga laynagu yidhi ilaahay ku caabud oo dhex orda. idan tawakulku wuxuu keenaa طumaaniina. haweenaydaas iyadoo cidlo degan bay ku kalsoonaatay rabbigeed oo ay tala saarato o isu dhiibtay, rabbina ma dayicin. tawakulku wuxuu keenaa xoog buu keenaa inuu qofku daa quwa noqdo, qof xooggan inuu noqdo waan waxba ka cabsanin. xoogganaantu haddii duwalka yaryar ama dadka yar haddaad og tahay inay kaa dambayso dowlad xooggan oo arrintaada u doodayso adiga hore u cabsamaysi, waayo waxaad is leedahay dee waxaa ku ilaalinaya dowladda yar maanta dunida saddexaad ku taalla ee maraykanku yidhaahdo anaa idin ilaalinaya, amnigiina ciidankaygaa qaaday. dadku niyaddaa wada samaanaysa waxay is leeyihin dowladdii dunida ugu xooga badnayd ayaa amnigiinii nabad qaaday. ka waran haddaad rabu samaawaat amnigaaga u dhigato, hadduu damaano qaado rabu samaawaat xooggaagu intuu leegi. idan qofka rumaysan in rabbigii damaano qaaday ma liito, waa xooggan yahay isagoo aan kibirsanayn. sidaa daraaddeed baa nebi nuux isagoo keli ah oo lagu cayaaraya buu lahaa yaa qowm in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illah facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum huma laa yakun amrukum calaykum gumma huma qduu ilaya walaa tundiruun. tolkayow buu yidhi hadday idin dhibtay oo idinku weynaatay dhex jooggaan idin dhex joogaan rabbi idinku yeedhaya hadduu idinku dhibbitay iyo xasuusintaan ilaahay idin xasuusinaya, anigu ilaahay baan tala saartay, idinku xoog waxaa leedihiin oo dhan isu geysta buu yidhi, oo waxaa yeeli kartaan ee ugu samayn kartaan oo dhan sameeya, waxba ha la hadhina. anigu ilaahay baan tala saartay, idinku waxba ha la hadhine waxaad doontaan yeela buu ku yidhi. yaan un taladiin qoomamiya cilidu ku noqonin buu tilmaamayay. waxa uu tilmaamayaa ambiyada qur-aanka ilaahay kaga waramayo qaaluu yaa huudu maa ji'tanaa bibayina wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlik wamaa naxnu laka bimu'miniin in naqulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu. waxay yidhaahdeen nebi huudow noolamaad iman wax cad, ilaahyadayana uga tegi mayno warkaaga, kuna rumayn mayno. wuxuun baanu ku aragnaana mid ilaahyadu dardareen markii uu waxa xun ka sheegay, habaarkiiyo inkaartii ilaahyadayada ayuubaa kugu dhacday. isagoo rabbi ku kalsooni qabo wuxuu yidhi innii ushhidu allaha washhadu annii barii'u mima tushrikuun. marka koowaad ilaahay baan markhaati gashanaya, idinkana waa idin markhaati gelinaya waxaa caabudaan horta inaan beri ka ahayo anigu aanan idinla caabudaynin. min duuni fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun. dhammaantiin isu taga oo idhakroo ikhiyaameeyo hay waxba hayla sugunina. anigu buu leeyay innii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbakum, anigu rabbigay baan tala saartay, idinkana rabbigiina. maa min daabbatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim. ma jirto dunida korkiisa wax socda ilaa ilaahay baa fooda haya buu leeyahay. aniga iyo idinkaba rabbaa foodayna wada hayeen, anigu isagaan tala saartay, idinku waxaad doontaan sameeya buu leeyahy. nebi shucayb qaala almalau aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka ya shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuuduna fii millatina qaala walow kuna kaarihiin qad iftarayna cala allahi kadiban in cudna fii millatikum bacda id najaana allahu minha. isna wuu soo wado wuxuu leeyahay cala allahi tawakalnaa rabbanaa faftax. nebi waliba wuxuu leeyahay rabbaanu tala saarnay. qaaluud iyo kooxdii la socotay markay dagaalka qolada gaale la galayeen ee kooxdii qaar baqatay laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudi ay yidhaahdeen, ilaahay wuxuu yihi qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu llah kam min fi'atin qaliila galabat fi'atan katiira biidni illah wallahu maca asaabiriin. nusuus badan oo qur-aan aynu akhriyi karna oo dhammaantood ka waramaysa tala saaradka iyo xoogga uu leeyahay.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. غزوة الأحزاب منافقين تمركي نبي جاي صحابة بقى قالين إيه إلهي وحكوا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذن تلصارت كإلهي لا تلصارت وحلق فائدة قلبي وحصله وحلق فائدة حق وحلق فائدة شرف. وإلهي وقرآنك وحكوا لي ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عدي إلهي تلصارته إلهي بعزنا إسكاله حكمة دمانتنا إسكاله سيدرادت ما منافقين توحى إلهي كنت المامي أيبتغون عندهم العزة قال ذاك تيدا ما عزني ما يكرادليا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بإلهي عدي الشرطي دونيسا والإلهي اكتسا شرف الله الدولة ده هي بغرطويو يكو أكتودا شرف مطالو. وحلق فائدة يتوكل إن إلهي أتكلسون دبقوا قبتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وإذا سألك عبادي فإني قريب. وحلق فائدة إن الله سبحانه وتعالى قدر كيسي قلدهيس أتغالك النقطي إن المرش وكل بين أدوك مركا داداشو وحا صوب حيناني كل بين وحي دونا بها النقضة واسكا قمت سيدي أدوني سيني النقطة ييني نقوم ويدو ويقفك مؤمن كما كو صبحي سوك روحي لهذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ولدك الصبح بيك ميت ومحي معنى هيك رضيت بالله ربا بالله إلهي بان ربي النمر اللي وقاهي ربي النمر وامحي يعني إلهي بان ما ملكي سوق ليبيا مسألة لقد حطيها كالعباد رضيت بالله إلها لمورا فهلك رضيت بالله ربا إلهي بان ربي النمر اللي وقاهي دونيدا إله باله سجانا مامورا ما ملكي سوق ليبيا أدان وحصوهره وفلله الحمد أدان وحسوه وفلله الحمد مرنا بدي بكم هايسو ويا إلهي ما ملكي سانوس جوجاي سجا مامورا يدرينا سادرادي توكل كنقطه وحكينا إن قفك مؤمنك الرضا بقضاء الله ولا يماده وهدو وحله يهدو وحوايو هدي وحفرح قليا ويمادان وحرق قليا هدي يمادان مد والبا إن ورور يهم يسخط يعرو أنو كو أبورين اسمعي الكام بنين أو قرتين إلهي قضيه سي قدر كيسي أو رالك النهضة. التوكل على الله وحلق فائدة الأمل قفك إنه الرجال لجن قف كان ربي لهين قوسيدي مكوح يسكد الدوا يسكد بيك موايان وقوسانيا لكن قفك رب الرميساني آمن سني ما قوسته سيدنا هدي أملك وحكوحلي الله سبحانه وتعالى قفك مؤمن كي قطعه مركز ما قوسته قفك إلهي تنصرته سيدا أول لبكم الدعوة ما قوسته وحديث قضاني آيات قضا ما قوصا أروري لكن وسيوكو بينا وحكو سيوكو بينا إنه إلهي تنصرنا محاين وبحنا يهدوا حين هو أديك سنة محا السبب يقفكو إنه متوكل رسمي وحقيقي النغضو وحا السبب يكون إنه إلهي برنا بأسمائه وصفاته العلى إنه برنا إله رحيمة ورحمانة وعزيزة وحكيمة وسميعة وعليمة وحينة وغيومة وغنية وحميدة وخبيرة وبصيرين جلو وقهار وقدير وذو القوة المتينة وحستأوده ربي قاهد السنة وأبرنه وحكا سنة سعينا لترصارنا ولذلك ترصارت كما يقانين فلسفر رضا يقوى كان وهي ربي قنبانا يقونين ربي قال نوع عانا وانا يقران إن سادة لا تدعي ترصارتان ما هي
waxay yaqaano qura tala saaradka nooca kana ciddii rabbi taqaana subxaana wa tacaala bisifaatihi alculaa baratay. qur-aankuna in badan buu inoo sharxayaa oo ilaahay isugu keen sharxayaa asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo awoodiisa oo ina leeyahay fatawakal cala allah wa cala allahi fatawakalu cala allahi tawakalna huwa araxmaan. yani in badan baa ilaahay ina baraya bismihi araxmaani araxiim aw ilcaziizi araxiim inaynu ku tala saarayno qul huwa rabbi laa ilaha illa huwa calayhi tawakaltu wa ilayhi mataaba kullu shayin haalikun ilaa wajhah وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. صفاتك ربي هدينو برنا وحين نقونيان إنينو تلا سارن كرنا ويعيد أنا دقونين أودي سنتي لافتي علمي سنتو لافتي نحاريستي سيا كالقعب كتاتك وغباينتو لافتي دمرنتي سنتي لافتي عفوي سنتو لافتي بكلا سارن كرتي قفانا قرانين وكيل كما ديغا كرتي qofka aad wakiil ka dhiganaysa waa inuu noqdaa qof aad garanayso. rabbi baad tala saaranaya markaad tidhaha waa inaad rabbi barataa. laba waa inaan rabbi kalsooni ku qabnaa inuu isagu dunida maamulo, inuu risiqa bixiyo, inuu samaawaadka iyo cirkaba isagu iska leeyahay. saddex waxaynu u baahanay inaynu baranno cagsiga bini aadamka. naftaada inaad garato. nafta bini aadamku mahma ay caqli badantay, xoog badantay, kan badantay, waa daciifa un haddana cid kalun baad u baahantao ku gargaarta. kama maarantid rabbigii ku abuuray marnaba. cidda ducfiga naftiisa arki kari waaya kibir baa qaada, tala saaradkana way ilaabaan. kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istagnaa baa ilahay leey. bini aadamku wuu qooqaa marka uu arko maxay inuu deeqtoomay. laakiin haddaad ogtahay inaad deeqtoomaynin intaad nooshahay rabbigaaba tala saaranaysa. bini aadamku hadduu kibro ilaahay ma tala saarto. inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii kii yidhi rabbi ma tala saaran. waxaad u baahannahay marka waxyaabaha tawakulka kordhinaya waxaa ka mid a inaynu garanno tawakulka fadligiisa. oo maxaa fadligiisa ka mid ah? waxaa ka mid a kow ilaahay inuu kugu fillaanayo fahuwa xasbu. waxaa ka mid a fadligiisa in alla ku jeclaanayo in allaha yuxibu lmutawakiliin. kuwa alla jeceliyayna dee ilaahay ma cadaabo. maxaa tawakulka inoo diidane hortaagan? kuwa aan sheegay cagsigooda. kow jaahilnimo, ilaahay oo la garan waayaa waxay keenaysaa in tawakulkaagu liito. laba naftaadu aad ku kadsoonto iyo waxoogaaga xoolaha ama caafimaadka ama caqligo aad isbiddo waxay keensanayaan inaad ku kadsoontid. saddex basharka ilaahay ka sokeeya oo aad iyaga ku tiirsato oo ad tidhaahdo kuwan baa wax walba kuu qabanaya waxay keensanaysaa inaad ilaahay ku tiirsigiisa ilowdo. afar adduunko aad jeclaato oo aad isa siiso waxay keensanaysaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala ilowdo. idan tawakulku wuxuu ka mid yahay maqaamaadka ama boosaska diinta ugu sarraysa ee qofka mu'minka uu baahaya inuu si dhaba ula yimaado. waxyaabaha tawakulka xumeeyana waxaa ka mid a ba'saysiga iyo tatayurka iyo waxa la